dhalinyaro badan oo Soomaali ayaa wadanka ku sugan oo la dhaho derbiga ayay ka soo boodeen si in legal ay wadanka ku soo galeen haddii Donald Trump uu soo laabto saameynta ku yeelan karta maxay tahay saameyn aad u xun buu ku yeelan karaa sababta ay ku tahay a lot of immigration policy ugu badan ayaan ka shaqeyn lawyer baa saalu socotay macquul ma tahay marka hadduu soo laabto kuwa caseska hadda u socdaan xitaa inuu dib u celiyo yes there's ways looga hortegi karo judges inuu meesha geliyo shuruudaha adkeeya xitaa all those things uu samayn karaa rajadaadu maxay tahay in Kamala Harris ay soo baxayso ama in Donald Trump uu soo baxayo sanadkan runtii anoo xitaa honestly democrat ahaan u hadlayn ma elected official u hadlayn runtii waan aaminsanahay boqolkiiba I would say aniga 99% inay iyada soo baxayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودواد أخيارتا ميل والبو نغا داوانيسان مغعيغو عبدالسلام محمد waxaadna naga daawanaysaan Shaaciye TV magaalada Columbus Ohio ayaa idinkaga imaanaya waxa barnaamijkan marti iigu ah xildhibaan Ismaaciil Maxamed oo kamid ah aqalka hoose ee gobolkan Ohio districtiga saddexaad ama deegaanka saddexaad ayaana laga soo doortaa barnaamijkan waxaan diiradda ku saari doonaa doorashada dalkan Mareykanka qaasatan madaxtinimada doorashada u dhaxaysa ee Kamala Harris iyo waliba Donald Trump sad la socotaanba doorashada way ka adag tahay doorashadii hore sidoo kalena dadka tartamaya waa qof markaasi soo ahaan jiray madaxweynaha dalkan Mareykanka iyo qof haatanba ah ee madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka intaasi ayaan falaqeyn doonaa ugu dambeyntiina waxaan ku soo afjari doonaa barnaamijkii weynaa ee historiga ahaa ee ka dhacay magaalada Columbus Ohio ee Ismaaciil uu hoostigareeyay ee ahaa Soomaalida dalkan Mareykanka laga doorto oo konferensigii afraad lagu qabtay magaalada Columbus Ohio Ismaaciil ku soo dhawow aad baan ka mahadcelinayaa walaalkay Shaaciye farxad badan inaan kula joogo Ismaaciil aan ku bilaabay doorashada dalkan Mareykanka dabcan adiga xildhibaan ayaa tahay sidoo kalena lawyer ayaa tahay aad ayaad ula socotaa doorashada dalkan Mareykanka Trump iyo waxa tartamaya Kamala Harris Soomaalida badan waxay isleeyihiin maxay ku kala duwan yihiin labadan ruux waa su'aal aad iyo aad fiican oo ka mahadcelinayaa walaalkay Shaaciye runtii waqtiga aad buu ciriiri u yahay saa ula socod 9 bari baa ka dhiman election day-ga November 5th so doorasho aad iyo aad runtii u saameyn leh orta waa socota haddii la fiiriyo taariikhiyanna waa doorashadii ugu dhoweyd the closest election buu noqon doonaa sanadkan haddii la fiiriyo the last 50 sano ugu dambeysay 50 years ugu dambeeyay marka la fiiriyey the closest election waaye marka waa dareemi kartaa runtii inaad wadanku aad ugu kala qaybsan yahay marka la fiiriyo all the different polls gobolada dhanba kulli waa tied waa wada sameyn yihiin marka runtii of course anagu Democratic Party ka mid ah xisbiga xildhibaan ku fadhiyaan ahay marka anagu Kamala Harris baa la soconaa iyo Tim Walz and obviously bulshadan runtii inaan ku wacyigelino waaye labadaba waxay ku fiican yihiin waxa ugu badan ay kula duwan yihiin labada xisbi orta aasaaskooda waxa waaye xisbiga jamhuuriga ama Republicanka waa xisbi runtii basekiisa uu a lot of times uu yahay dadka hantida leh base runtii aad cunsuri uga kana soo horjeedo dadku danyarta ah dadka madowga ah minoritiska dadka soo gelitaanka ah runtii waxaan u baahanaynaa falanqeeyo ma wax taariikhiyan iska jiray weligeedba sababta ay marka minoritiska iyo immigrants ugu bateen xisbiga Democratka ay 90% iyo plus u codeeyaan waxaas waa horta dhaliyay ka sokoona runtii hadii la fiiriyo xitaa baahida dhaqaalaha xitaa hadii loo fiiriyo boqolkiiba xisbiga Democratka ku fiican sababta ay ku tahay waxay aaminsan yihiin dadka danyarta in gacan la qabto waxay aaminsan yihiin tuitionskii jaamacadaha kor u kacaya in la raqiisiyo waxay aaminsan yihiin inflationkan kor u socota in laga hortago runtii marka waxyaalayaashaas oo dhanba oo nolol maalmeedkeena saameysa horta baan ku taageersanahay xisbiga Dimuqraadiga xisbiga jamhuuriga runtii waa xisbi uu dhaqaale iyo waqti effort midna gelinin bulshada oo hadii la fiiriyo minorities kamisa immigrants inuu dhex galo runtii xisbi waxa waaye ay ku adag tahay inay ku doodaan especially dadka minorities inay cod ka helaan sababta ay ku tahay waa xisbi uu u orday Donald Trump oo qof his entire campaign ka dhigay cunsurinimo iyo bigotry iyo racism marka I think waa wax iska cad hadii la fiiriyo dadka character hadii la fiiriyo mase dhaqanka dabeecadka hadii la fiiriyo nolol maalmeedkaas hadii u saameynaysaa laba wax runtii aad u kala duwan waaye laakiin markasta culayskana saaran waa in bulshada wacyigelin oo fahansiino waa hagaag annaga Soomaaliya nahay muslimiin nahay Afrikaan nahay immigrants waa nahay dad soo galooti ah yaa inoo wanaagsan inaan u codeyno oo aan taageerno boqolkiiba Kamala Harris Tim Walz I mean wax la soo koobi kara maadii qodob xitaa u galo wax iska dhow maaha sababta ay ku tahay hadii la fiiriyo orta kow Donald Trump waa la soconay 40 sano fadhiyo wuxuu sameeyay laga bilaabo muslim banka iyo cunsurinimadu ku sameeyay dadka minorities immigrants ka dalalka Afrika ka imaanay Haiti runtii waxyaalayaashu ku hadlay ee ficilku sameeyay orta way iska cadeyd waa 4 sano oo documented very well haddana runtii the main plank uu wata asaga waxa waaye Project 2025 which is
program oo runtii aad loo falanqeeyay runtii qodob ah wuxuu samayn doono kahortag uu samayn doono dowladda Mareykanka dhanba u bedeli doono marka runtii waa wax la dagaalamayo runtii dadka muslim haddaan nahay madow minority immigrants waa wax ka soo horjeeda qodob kastana nolol maalmeedkeena la dagaalamayo asaguna markasta markuu ku celceliyo make America great again oo slogankiisa ah runtii su-aasha waxa way dan goormo Mareykan wanaagsanaa taariikhiyan dadka especially minoritiska dumarka madowga ah dadkaas goormay u fiicnayd ma fiicnayn waa runtii dalkan dal taariikh aad u fulxun lahaa waa Mareykan waa la soconaa waxyaalayaasha Mareykan markasta laga dadaalo waxa way runtii in laga hortago waxyaalayaashii hore dhacay maxaa lagu bedeli lahaa maxaa la samayn karaa in loo dhaliyo equality cadaalad ah marka I think waxa waaye phrase-ka make America great again waa runtii mid ku salaysan cunsurinimo mid la dagaalamaya dadka minority immigrants-ka marka I think wax u baahan maaha falanqayn runtii dadku waa inay ogaadaan in xisbigan Kamala Harris xisbigan wax ku leenahay hawiyada dimuqraadiga every siyaasi Mareykanku noo dhanba dhowr iyo 30 baa gaarnaa malnaa kulligeen xisbiga dimuqraadiga sabab baan ugu jirnaa sabab bay ku dhacday inaa hal Soomaaliya Republican u jirin marka waa in aqliga laga shaqeeyay la fahmo sababta waxay ku tahay kana runtii de qof again fakar iyo cilmi u baahan tahay qofku inuu fahmo bulshadana markasta inaa wacyigelinta u wadno muhiim bay noo tahay runtii sidoo kale Soomaalida inta badan ganacsiyadooda ugu waaweyn waa home health care transportation iyo day care iyo waxyaabahaas ay aad uga shaqaystaan oo shaqooyinka mainka u ah waayaan haddii Donald Trump uu yimaado ma laga yaabaa shaqooyinkaas inay qeylqeyl gali doonaan boqolkiiba boqol I mean maalin dhaweyd xitaa waxaa dhegeysanay interview ka hadlayay waxa la weydiiyey how do you feel about tariffs-ka iyo dadka products-ka soo gelaya dalka Mareykan wuxuu yidhi waxaan saari lahaa 1,000 or 2,000 tariff aan saari lahaa kaa waxay ku tusaysaa qof aad u caqli yar sababta ay ku tahay maba fahansanaba tariff iyo micnihiisa runtii arintu inuu kala fahansan yahay marka waa waxyaalayaal lala yaaba runtii marka la fiiriyo economist iyo professionals markay baaraan waxay dhahaan wax plana uu leeyahay haba yaraatee ma jiro ka ahayn just waxa waaye I'm gonna make America great again wall baa dhisaya marka waa the same runtii wax mala doodo oo la soo maray adii markii hore dadka xaraarad badan bay u lahaayeen because waxa la dhahay qof ka baxsan waaye the political mainstream ka baxsan buu ahaa interesting buu ahaa xaraarad baa lagu lahaa haddeer laakiin marka la arkay inuu qofka caqligiisa u siyaadan runtii sidiisii uu yahay I think dadka way garanayaan I think President Obama si fiican buu sheegay during the convention-ka Chicago aan dhegeysanay speech-kiisa wuxuu yiri we know exactly ninkan wuxuu taagan yahay wax cusub ma aha ninkan waa ninkii sidii hore marka waan soo aragnay movie-gaas mar hore movie labaad ma ogolaanayno dadku waa inay ogaadaan marka runtii ninkan inuu isbedelin inuuna cilmi u lahayn economic financeska iyo u shaqeeyaa nidaamka ah laakiin runtii Kamala Harris na plan bay leedahay every detail of nolol maalmeedkaaga from small businessyada in la taageero lacag in lagu caawiyo to first time home buyers dadka guryaha gadanaya inay ku caawiyaan runtii program aad u ballaaran ay ka hortegayso inflationka iyo duruufahan bay haysataa runtii marka I think anyone oo raba inuu su'aalo ka qabo runtii wuu tegi karaa website-keeda iyo Donald Trump website-kiisa u arko policy details-ka waxaan xasuustaa markii campaign-ka aan iraahday debate-ka ay ku jireen oo uu dhihi jiray concept-aan haystaa oo dhanka caafimaadka ah uu dhihi jiray halka siyaasadda Kamala Harris ay iska cadeed laakiin isaga wuxuu dhahay concept plan runtii waa waxyaalayaasha waxa lala yaabay runtii debate-ka in si xun loogu adkaaday because wuu isku dhex wareeray da'na way keentaa runtii qayb kamid ah the same thing I think ku ataaganay Biden oo ahaa da'da inay asaga qabsatay sababta ay ku tahay on the first debate that's why inuu u diiday second debate then Kamala Harris waited within a few days waxay tiri second debate diyaar u ahay isaga wuu diiday marka again waana da'na way keentaa I think fahan darana way keentaa runtii inuu shaqada debate-kaasi haddaan dib ugu laabano dad qaar Soomaalida waxay qabaan in Donald Trump aan laga badinin sida caadiyanna waxaa muuqatay in laga badiyay adiga maxaa aaminsan tahay I mean but it's kaas waa wax iska obvious runtii in laga adkaaday I think every state process bay u maraan certification process and a lot of cases waa la keenay maxkamad litigation oo lagu doodayo inay dhaceen flaws wax khaldameen runtii every case na maxkamaddu si cad baa loo yiri wax khaldameen ma jiro so waxyaalayaasha uu Donald Trump khatar ku leeyahay waxaa ka mid ah the fact that 2020 election laga adkaaday very clearly inuu ku dooday lagama adkaan marna waa qof mar dhowr jeer ku celceliyo yiri constitution-ka dastuurka dalka Mareykan waa sharciga ugu muhiimsan dalka Mareykan oo dhanba sharcigaas wuxuu yahay isaga dhanba waa tirtiraya waa tuuraya I'm going to be a dictator by you on day one marka waa qof runtii aad u caqli yar u cilmi yar dadkuna hadda runtii waa laga xiisa dhacay wixii xaraarada loo lahaa mar hore it's not interesting hadda ma anymore waa hagaag also doorashadii hore markii laga adkaaday khalalaasaha wadanka ka dhacay hadda macquul ma tahay in khalalaasa kale uu dhaco haddii laga adkaado I think absolutely ninkan dhowr jeer waa la weydiiyay I think in the debate taa waa la weydiiyay dhowr jeer waa la weydiiyay debates-ka la yiri lacalla 2024 elections-ka ma aqbalaysa hadii laga badiyo
markaasuu wuxuu yidhi maxaa la laygama badanayo haddii layga badiyey only waxaa layga badin karaa haddii la jiig gareeyo kaa marka waxay ku tusaysaa inuu yahay qof oo runtii og in laga badin doono laakiin haddeer buu sii tuhmayaa siina sheeganayaa in ma aqbalayo waa the same thing uu sameeyey 2020 historically maraykanka ma dhicin ever inay marka la sameynayo transfer of powerka madaxweyne weligeedba si sharaf leh madaxweynaha soo geliya oo la shaqeeya sida awoodda loo wareejiyo weligeed ma dhicin historically inuu imaaninba inaugurationka marka yacni waa qof runtii dowladdii maraykan dhanba afgambiyey oo yacni runtii isku dayay inuu bedelo maraykan systemka dhan uu shaqeeyo dadkuna haddeer way arkeen runtii aad weyn thank you waxaan u gudbaynaa dhanka iyo swing stateska horta swing statuska qofkaan garanaynin sharxaad naga siiya so maraykan obviously saa ula socotay maraykan waxaa la isticmaalaa electoral college dad badan horta fahansanayn ba horta waxay u maleeyaan in la isticmaalo popular vote codka guud micna kuma fadhiyo maraykan waxaa la isticmaalaa electoral college marka every state waxay helaan delegates aniga tusaale saa ula socotid delegate baan ahaa gobolka ohio represent garaynaya ka qayb galay chicago conventionka and every state delegates bay helaan nambaro ay ku codeeyaan qofka markuu gobolka badiyo all the delegates u helayaa dhowr gobol baa jira laba gobol baa jira oo split ku dhaco I think inta kale mataqaanaa wuu wada helaya delegateska marka gobol kastana number buu leeyahay gobolladuna dee marka historically la fiiriyo the last 50-60 years dhinac bay u badanayaan marka that's why loo dhahaa solid states oo blue states oo heavily blue ah democrats ay badanayaan hadday california new york in waqti la iska geliya ma qof republicana oo yani caqli leh waqti uma u gelin lahayn of course those are blue heavily blue states somehow same thing on the marka la fiiriyo dhinaca kale oo republican kala fiiriyo states waxaa jira very red ah hadday alabama iyo mississippi you know waa waqti lumis in waqti ay geliso Kamala Harris obviously it's a very heavily red state why marka maraykan marka la fiiriyo overall hadda 6 states ba adiga swing state la dhahaa oo labada dhinac mid aadi kara marka campaignka dhanba wuxuu ku socdaa 6 state waaye runtii Michigan for example Pennsylvania Wisconsin Georgia a couple of states baa iyagana ku jira oo runtii aad campaign culus uga socdaa kuwaasa marka go-aanka ugu dambeeya qaadan doona muhiimadda ay 6daas state ay leeyihiin maxay tahay waxay tahay waxa waaye ma cadda dhinacu yacni u codayn doonaan that's why labada candidateska waqti badan ay u gelinayaan dhaqaale badan loo gelinaya waxaan rabaa inaan fahmo ma cadda markii la leeyahay blue state-na ma ahan red state ma aha marka meel ay u dhexdhexaad ay ku jiraan waa tied waa base marka polska la fiiriyo historic taariikhna la fiiriyo gobollo waxay ahayn swing waxa laga wadaa dhinac bay markasa aadayeen mar waxaa badan yahay democratic candidate mar waxaa badan yahay republican marka labada dhinac bay u furan yihiin waaye marka qof kasta waqtigiisa loo geliyo waaye kuwaas marka dee waa gobollo oo qofka uu yani u baahan yahay waqti badan dhaqaale badan u geliyo ay ka mid tahay for example Michigan you know gobolka nagu dhegan next door state and Michigan haddeer saa ula socotiin waqti badan iyo juhdi badan baa la gelinaya gobol aad loogu dagaalamayo sababta ay Ohio waqti badan loo gelinaya waxa waaye Ohio haddeer the last marka la fiiriyo 10-12 years waxay u badnayd red bay u badnayd marka haddeer national electionska effort badan in dhaqaale badan ma garanayaan laakiin gobolladaas loo gelinaya marka waxaas laga wadaa swing state okay aad u mahadsan tahay marka swing stateskaas haddii qofka uu waqti geliyo dhaqaale geliyo taa waxay keenaysaa in dadkii deganaa meeshaasi ay qofkaasi u wareegtaan markaa leedahay dhaqaalaha la gelinaya anaga Soomaaliyana waxaa nagu soo dhacay laaluusha nagu soo dhacay ma laaluush oo dadkii codaynay la siin doonaa mise see dhaqaale no I mean laaluush ma dalka American bribery waa illegal way laakiin si guud in dhaqaale lagu bixiyo ads doorknockinka canvassinka yani waqti campaign in loo geliyo codka in la helo bulshada that's why hadda aragtid both of the candidates waxay ugu badan yihiin for example Pennsylvania Michigan North Carolina right goboladaas baa waqti badan time la geliya Georgia Arizona marka goboladaas sababta ay ku tahay gobollo waxa waaye runtii polska marka la fiiriyo nambarada waa tied waaye marka goboladan waxa waaye especially muhiimka especially in Pennsylvania ugu sii muhiimsan gobolada because waxay haystaa 20 delegates waa numberka ugu badan for a swing state marka ayagoo kale mid laga maarmo ma aha muhiima labada dhinac bay inay badiyaan bay rabaan ay waqti dhaqaale gelinayaan okay waxaan u noqonayaa Donald Trump haddii la doorto Muslim banki ma soo noqon doonaa mise wuu iska dayn doonaa I mean I think absolutely soo celinaya I think everything uu sameynaya because weligeed ba taariikhiyan marka la fiiriyo madaxweynaha Mareykan second term ka midka labaad madaxweyne weligeed buu ka awood weyn yahay يعني wax badan oo celinaya ma jiro sababta ay ku tahay waa second term mareykan saa loo socdo 2 terms bas waaye afka mar saddexaad kale ma ordi karo so second term madaxweyne weligeed awood buu isticmaalaa more that's natural why because waa 40 sano kugu dambeysay kama fakariis campaign kala soo socda marka haddeer obviously a lot of things baa dadka walwal badan ka qabaan haddeer Mark Kelly former chief of staff kisa letter buu qoray iyo a lot of generals runtii baa also ka hadlay waana pretty rare wax rare away dhicin inay generals oo ahayn political inay soo galaan ay dhahaan walwal baa ka qabnaa dalka Mareykan gudaha walwal u qabnaa ninkan hadduu badiyo it tells you xaaladda meeshay marayso extremes meeshay marayso xaaladdu sababta ay ku tahay ninkan oo yani runtii kuna dhaaranaya mar kasta runtii redemption meaning waxa waaye argoosi baan samaynaya dagaal baan suubinaya
and then on top of that Supreme Court Mareykan saa ula socotid waxay dhahay ku dhawaaqeen go'aan aad u xun runtii few months back oo dhahayay basically any presidential decision go'aan kasta madaxweyne uu qaado in his official capacity go'aanka uu madaxweynimada ku qaato mid laga daba hadli kara maaha meaning waxa way wax ma aha laga daba tegi karo marka kaasna runtii waxay muujinaysaa de 4 sano inuu go'aan kasta rabo inuu qaato iyo on top of that project 2025 ka marka runtii wax kasta uu sameyn doono way sii layout gareeyaan even though asaga wadama inuu iska distance gareeyo I think way iska cadahay dadkii la shaqeynay aliskiisa qoray marka waxaas bay generaladan runtii uga hadlayaan markasta walwal badan uga qabaan ninka inuu soo baxo mar labaad okay ka Soomaali ahaan muslim ahaan maxaa naga soo gaari kara haddii Donald Trump la doorto revenge-ga uu doonayo inuu sameeyo runtii aad iyo aad waxaa naga soo gaari kara muslim bank inuu sameeyo inuu la dagaalamo dadka runtii muslimiinta ah dadku qaar badan baa macquul in dhaliil u qabaan Kamala Harris iyo Biden oo dhahaya especially Middle East iyo waxa ka dhacay laakiin ninkan waa ninka markasta ku sii dhaarnay dhahaya yani saan ka sii darsiin lahaa marka waa qof runtii xumaanta iyo nacayb ku jira level kale uu marayo marka dadka Soomaalida runtii muslim ma fahansana dadku qayb badan runtii waa lagu wacyi galiyay dadka majority runtii I think Kamala Harris bay la socdaan taageerayaana laakiin dad yar way jiraan oo u baahan markasta in la sii wacyi galiyo la fahansiiyo dhalinyaro badan oo Soomaali ayaa wadanka ku sugan oo la dhaho derbiga ayay ka soo boodeen si in legal ay wadanka ku soo galeen haddii Donald Trump uu soo laabto saameynta ku yeelan karta maxay tahay saameyn aad u xun buu ku yeelan karaa sababta ay ku tahay a lot of immigration policy ugu badan aan ka shaqeyn lawyer baa saalu socotid waxa ugu badan madaxweynaha hor sameeyay madaxweynaha awood badan buu leeyahay maxal soo gelitaanka dalka Mareykan so marka waxyaalaasha uu ku hortagi doono asagana marka soo ku dhaaranayna waxay ahayd taqaan inuu obviously deprogramming everyone kulligood buu deprogramming no due process iyo sharci ma marayo maxkamadaha jira of course ka hor istaagaya laakiin waxyaalaasha cabsida laga qabo waxa ka mid ah the fact that Supreme Court maxkamadda ugu sareysa ay tiri any decision madaxweynuhu qaato in his official capacity qodobkaas waa muhiim in la fahmo go'aanka maxkamadda saameynta ugu weyn ay leedahay oo runtii laga walwalayo waxaas waaye in go'aan uu qaato official capacity ku qaadanayo in laga daba hadli karin meaning maxkamadda inay su'aali karin laga doodi karin constitutionality iyo due process iyo wax laga doodo marka cabsida laga qabo marka waxa waaye inuu wax kasta u sameeyo ka inuu u diido processkooda applications ko pending ah inuu ku hortago inuu judges magacaabo oo cunsuri ku aadka minorities ka iyo dadka soo gelitaanka marka waxaas oo dhan wayna saameynaysaa I think okay macquul ma tahay marka hadduu soo laabto kuwa caseska hadda u socdaan xitaa inuu dib u celiyo yes there's ways looga hortegi kara judges inuu meesha geliyo shuruudaha adkeeya xitaa all those things uu samayn karaa isagoo isticmaalaya wax la dhaho national security madaxweyne awooduhu leeyahay wax ka mid weligeedba inuu any decision uu qaadan karo as long as uu ku doodayo national security for the greater good wanaaga guud iyo dal difaaca madaxweyne weligeed awoodda ugu badan oo haysta kaas waaye marka wuu samayn karaa waxaas oo dhanba maxkamad haddeer ka hor istaagtana ma jirto haddeer Supreme Court kadii hadashay marka waxaas oo dhan isku wada geeyay runtii project 2025 waxay ku muujinaysaa in dhibaato weyn not only dadka muslimka iyo Soomaalida iyo minorities-ka ba dadka guud runtii dalkan oo ka fakir doona isagu inuu rabo inuu la dagaalamo waa ogahay dimuqraadiga ayaa tahay xildhibaanaa tahay adoon u hadlaynin dimuqraadiga ahaan qof dimuqraadiga ka mid ah adoon u hadlaynin rajadaadu maxay tahay in Kamala Harris ay soo baxayso ama in Donald Trump uu soo baxayo sanadkan runtii anoo xitaa honestly democrat ahaan u hadlayn ma elected official u hadlayn runtii waan aaminsanahay boqolkiiba I would say aniga 99% inay soo baxayso sababta ay ku tahay dil fiiriye historically I mean for someone who campaign dhan bilowday recently a few months back wadar ah markuu Biden ka haray campaign-kiisa ula socotid runtii inuu haddeerna polls-ka ay tied yihiin waxay ku tusaysaa mayeeda in aad ayada loo rabay inay soo maxal ayada orado hadduu Biden joogi lahaa maybe xaaladdu isbedel lahayd runtii laakiin ayadu in haddeer aad wanaag badan iyo jacayl badan iyo dareen badan uu soo laabtay Democratic Party haddii la fiiriyo donations-ka la raise gareynayo door knocking-ka excitement-ga especially dhalinyarada dadka ah runtii aad bay u fiican tahay marka again campaigns waa dhib badan yihiin wax kastaana dhici kara 2016 waa la soconay so it's possible asaga inuu soo baxo laakiin aniga marka la fiiriyo all the different things la fiiriyo iyo campaignka muddada yarta ay ku bilowday I think aad bay chancekeedu u fiican waxaa jiro ideology dumar ma doortaan Mareykanka maxaa isbedelay hadda runtii waa waligeed wax dadku taariikhiyan historically ay iska aaminaan waa run adduunyada majority la fiiriyo dalalka niman baa madaxweyne u ah wadamo badan baa jiray dumar madaxweyne noqotay haddii noqotayna hal gabar waa macquul inay soo baxday so marka historically traditionally anaga inaa u badnaayeen raggu waa wax iska jira Mareykanna obviously waxaa ugu dhaweyd Hillary Clinton 2016 campaignkii ayadana very close buu ahaa campaignkaas way soo bixi kartay laakiin waxyaala badan baa
maxaa la ka hor istaagay. I really do think aniga dadka inay cunsurnimo ku jirin, dadka majority dad way jiraan yar oo maybe dhihi kara dumar uma codayn anaga no matter what, way jirtaa kuwaas, laakiin waa small percentage number waaye. Sababta ay ku tahay dumarka waxaan u doornaa every other position, governors, cabinet ministers, kulli u doornaa. Marka runtii wax uma malaynayo oo ka duwan oo madaxweyne isbedel badan ma jiro. Boosas kasta oo awood leh dalka Mareykanka dumarku way qabtaan. Okay, mahadsanid. Doorashada waan ka wareegaynaa, waxaan u wareegaynaa shirkii dhowaan aad ku qabatay magaalada tan ee Columbus, Ohio. maxaa kugu dheliyay shirkaasi noocaasa inaad halkan ku qabato? aad iyo aad kaa mahad celinaya. shir runtii aad iyo aad farxad noo ahaa. shirkaasna waa annual event waa inoo dhici jiray sanad kasta. So every year wax lagu qaban jiray gobollo kala duwan. 2 jeer Minnesota lagu qabtay, mar waxa ku qabanay Boston. Hadda marka sanadkan anigu campaign kuma jirin anigu, opponent ma lihi anigu, even though wala iyo codaynaya of course, but opponent aniga ma lihi, marka wax campaign ani dhinacay ka socday ma jiro. Marka time ahay runtii inaan kulankaas sameeyno, farxad bay noo ahayd. 20 xildhibaan inoo yimaadeen runtii iyo safiirka dalka Soomaaliya. Marka waa uga mahad celinaya runtii kulan taariikhi buu ahaa runtii. aad iyo aad ugu faraxsan runtii kulankan si wanaagsan ugu dhacay. runtii waan rajaynaa runtii sanadaha soo socda inuu intaan ka sii weynaan doono insha Allah. faa'iidada marka ay u lahayd bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Ohio in shirka la qabto maxay ahayd? horta waxay noo ahayd farxad anagu inaan gobolkan xildhibaan soo dhaweyn karno. horta gobolkan uu yani jaariyada labaad Soomaaliya ku nool yihiin ka horta mid waaye. midka labaadna waxa way runtii hadafku wuxuu ahaa runtii in xildhibaanadu is bartaan. xildhibaano badan baa jira dhawaan soo baxay oo chance ku helinay kulmaan. dhowrkii jeer oo kulamada la qabtay runtii diir baa imaanayay ilaa 9-10 xildhibaan baa imaanayay. dadku way yaraayeen, haddeer nambarkii ugu badnaa baa isku yimaaday. marka horta inay is bartaan xildhibaanada kooban oo ahayd. marka labaadna inay safiirka cusub ay bartaan. safiir daahir oo runtii dhawaan safiir noqday dhowr bilood ka hor baa isagana nala joogay oo hadafku ahaa inay is bartaan. dalka Soomaaliya maxaa ku caawin karnaa, garab ku siin karnaa anagu xildhibaano Mareykan. kaasna runtii hadaf buu ahaa. private meeting la qaadanay isagoo safiirka kala hadlayno dowladda Soomaaliya, yani maxay plankeeda muxuu yahay, maxaan ku caawin karnaa. Okay, marka shir kastoo la qabto faa'iido inay ka soo baxdo weeyaan. maxaa faa'iidaha soo baxay? faa'iido waxa ka soo baxday runtii isbarashada. 2 inay sharciyada xildhibaanada kala duwan ay keeneen goboladu ay runtii bulshada sheegareeyaan. wax badan baa cover gareynay. gun violence kamid yahay, healthcare, runtii baahiyooyinka darooyinka la isticmaalay dhibka ay ku leeyihiin bulshada, immigrationka iyo soo gelitaanka saameynta ku leeyahay deegaanada, kulli runtii waa taabanay. waa qodobo aad u qiimo badan. muhiimkuna waxa xildhibaano horta inay bulshada wacyigeliyaan waxay gobolada ay ka qabteen. xildhibaanan ayagoona iska bartaan sharciyada kala duwan ay keeneen. because xildhibaano badan baa jira fursad u helin inay ogaadaan. marka xildhibaanadan kala baraya oo wax u sheegi kara qodobada ay keeneen. kaana mid buu noo ahaa qodoba. midka saddexaadna runtii inay safiirku iyo dowladda Soomaaliya waxaan ku caawin karnaa, garab ku siin karnaa inaan kula shaqeyno. qodobka saddexaad buu kaana noo ahaa. Okay, tan kale waxaa jirtay hadallo magaalada la isdhex marayay oo ku saabsan shirkaasi guulku muusan dhammaanin sidii la rabay, ma uusan noqonin, wuu fashilmay ayaa la lahaa. maxaa ka aaminsantahay adiga? runtii waxaas wax ka jira ma jiraan. runtii kulanka si fiican noogu dhacay. waa runtii 2 beri iyo maalin bay ahaayeen. aan casho ku bilownay runtii, kadibna insha Allah breakfast oo private la cunay ambassador. kadibna runtii hadafku wuxuu ahaa runtii inaan city hall geynay, city council aan geynay, guddiga golaha magaalada ay la kulmeen city council members. habeenkii xafladeedii baa xoogaa yar mataqaana dib u dhac yar ku yimaaday, baan maaha, oo runtii xoogaa formyadiisa u rabnay uma dhicin. dib u dhac baa ku dhacay. axaddii baana dhammaystirnay formyada runtii. markaas delegates bulshada waa ka raaligelinay runtii, xildhibaanadana waa ka raaligelinay. muhiimkan waxay noo ahayd runtii inaa 2 beri iyo bar form soconaya. waa form dheer oo dareemi kartiin wax kasta iskuma aadamayaan. laakiin farxad waxay noo ahayd runtii inaan Sundaydii State House kana geynay xildhibaanadu, aan qabanay habeenkii form kale, aan ku soo afjarnay formyada noo dhibnaa. marka alxamdulillah si fiican buu noogu dhacay runtii. Okay, adoo soo koobaya Soomaalida guud ahaan Mareykanka degan, maadaama xildhibaanaad tahay, sharci yaqaan tahay, doorashooyinka dhacana faa'iidadoodii iyo khasaarahoodana aad u og tahay, maxaad ugu baaqi lahayd Soomaalida gobolkan guud ahaan Mareykanka ku nool? Soomaalida guud ahaan Mareykanka runtii boqolkiiba waxaa dhinaca codeeya 9 beri baa hadda ka dhiman doorashada. historic election waa runtii taariikhiyana oo meesha hadda aan taaganahay xaaladdu ay marayso. marka waxaan dhinaca ku codeeya aad iyo aad muhiim u tahay. labada qofka inuu ogaado labada musharax maxay u ordayaan. dadka majority runtii ma fahansana. runtii wixii la isaga sheegay iska qaataan, laakiin bulshada inay baaraan inuu qofka hadda luuqada garanayn xitaa fursadooyin badan baa jira qofka inuu turjubaan qof heli karo. policyada mar badan Soomaaliya xitaa lagu turjubaana iyo luuqada kala duwan. qofka inuu barto marka labadan musharax ordaya maxay u tartamayaan, nolosheena ay saameynayaan, kaana bulshada inay bartaan. markan waxa la codeeya kana faa'iideysta taariikhdan dhacaysana insha Allah November 5th qayb ka noqda runtii. waa mahadsantahay xildhibaan Ismaaciil. waxaan kusoo gabagabeynaa anoo markii hore rabay inaan soo gabagabeeyo, waxaa igu soo dhacday su-aal ah issue 1 iyo issue 2 maxay ku kala duwan yihiin, maxayna faa'iido u leedahay in loo kala codeeyo labadood?
runtii issue one issue noogu muhiimsan hadda noo saaran hadda electionska especially in Ohio issuegaas wuxuu naga caawinaya wax kale maaha waxa waaye wuxuu ka hortagaya wax la dhaho gerrymandering waxa waaye process oo siyaasiyaasha elected officials especially governorka iyo kuwaas ay doortaan district mapska say u egyihiin kaana dhibku leeyahay waxa waaye qofka especially qofka markuu yahay qof xisbi ka socda dan dantii xisbigiisa u badanayaa marka gerrymandering process laga hadlayo waxaas waaye waa wuxuu sameynaya qofka maps uu sameynaya ugu talagalay xisbigiisa inuu cod badan ku helaan sababtaas waaye Ohio hadii la fiiriyo xildhibaanada hadda inaan ka mid ahay 32 ku nahay state house-ka xisbiga jamhuurigana waxa way 67 waa dareemi kartaa marka laba laab runtii inuu yahay waxay gacantooda ku sameeyeen waxay gacanta ku sameeyeen maps waxa ka hortagayna anagu runtii maxkamada badan litigation ka sameeyay iyo case waxaas waaye in la dhaho waa khala gerrymandering-ka because dil la fiiriyo voting numbers kada ka codeeya numberku waxa way aad bisu ku dhawin waa 45 to 46 to 54 waaye codka breakdown ka dil la fiiriyo aad bay numberada isugu dhawin codka guud laakiin marka la fiiriyo districtyada xildhibaanada runtii laba laab inuu yihiin waxaasna wax kale ma waa gerrymandering process loo maro in districtya qofka uu doorto hadda marka waan ka bedelinaa kaas waxaan ka dhigaynaa mid shacabku ay dooran karaan citizenska ay dooran karaan instead of governor hadda 5 qof aad doortaa realistically governor executive state attorney general ilaa 3-4 boss annagana waxaa ku haysan 2 cod ilaa 7 waa yihiin 5 marka waa republican 2 annaga democrat ku haysanaa marka cadaalad ma aha runtii waana waxyaalayaasha issue-gana ku bedelayno si loo sameeyo district oo fair ah oo cadaalad ah runtii matali kara bulshada oo haya guudna marka shacabka go'aanka ka gaaraya marka issue one aad bulshada ugu bogaadinayna inay yes u codayaan insha Allah waa mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee dalkan gobolkan Ohio oo markaasi laga soo doorto deegaanka saddexaad oo barnaamijkan marti igu ahaa intaan dib dambe u kulmi doono aniga xildhibaanka waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo